بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد حلقة عصب إيو بي سي واي تي في إن شاء الله. حلقة عصب وحين كوي قدونا ما دام أي بشي رمضان إلهي سبحانه وتعالى وسود شيء قرآنك آيات كم إذا قرآنك كريم كا إنه إن إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيس هي حقيقة حدنا آيات إتوس أو إتابسي ما أنت نغطي ورنتي uu la yaab badan soo quraanka oo dhan yaani uu la yaab badan yahay oo islaamka oo dhan uu la yaab badan yahay yaani xagga wanaaga iyo ma garanaysa xaqnimada iyo xaqiiqada ayaa hadana ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu mar walba inaga dhex tusaya aayaad runtii yaani aad la yaabayso sida ay maaragtay aayadaasi kalaamka ilaahay sidoo yiri iyo sida ay u dhacday sida isu waafaqeen aad la yaabayso ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ku yiri fi suratu saf ayada sagaalaad huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli walau karihal mushrikun ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu ognahay in islaamku uu soo maray caqabado adag iyo dhibaatooyin xilli nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam sida siirada ay xusayso xilli mandheer dusha laga saaray xilli la yiri aynu dilno xilli maxaan ku dhahdaa lagu soo qaaday dagaalo waaweyn oo iyadoo yaani kun qof in ka badan ay yaani dagaal ku soo qaadeen oo dagaalkii badar dagaalkii maxaan ku dhahdaa uhud in ka badan يعني 3,000 oo ma garanaysaa ciidamo ah ay ku soo duuleen iyagoo tiro yar dagaalkii ahzaab oo ay ku soo duuleen in ka badan yani 10,000 oo askari ama ma garanaysaa ciidan ah oo ma garanaysaa dadkii isu soo bahaystay xulfada ahzaab yani xilliyo adag buu islaamku soo maray xilli 10 sano uu nabigu yani uu ma ka dhex joogay oo intii aan loo idmin hijrada ay ma garanaysaa dhibaatooyinku muslimiinta ay ma garanaysaa qaarna la leynayay qaarna la toojar gareynayay ilaa maaragtay bilaal oo kale iyo waa kii ahad lahaa ala yaasir waa kii reer ala yaasir waa kii la laayay maxaan ku idhahdaa yani dhibaatooyin aad u fara badan oo aad ka wada war haysaan dhammaanteen waa xasuusinoyn ayuu maaragtay islaamku soo maray ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadan qur'aanka maanta aynu ربنا إنه وحي رسب براكتيكال إنه أرجنه أي إلهي وحوليه هو الذي أرسل رسوله بالهدى وإلهي سبحانه وتعالى سو دري رسول كيس بالهدى هنون كلا صدري قرآن كحق إسلام كلا صدري والدين الحق دين حقه لا صدري ليظهره على الدين كله سيو ديمها كلا أردن وجكر مريو أما وجموتشيو أما وقعت كيسيو ولو كره المشركون هبا كراهيستان ضدك مشركين تا ضدك قالوا ضاهي هبا كراهيستان أيضاس بين إيجينا فالسيدة واقعة أي أوافق سنتهاي مانتا عالم كوحين أبنهاي لباتوين كهايستا مقراني ساي عالم الإسلامي هايستا إن مقراني ساي دقالوه مقراني ساي لقى دقاله في عيهاي حاجة garanaysaa xuduudda militariga laga xuduud fiican yahay xagga aqoonta maadiga maanta lagaga fiican yahay inkastoo ay waliba haystaan waxyaabaha resourceska ama khayraadka ugu tirada badan caalamka oo uu yaani ku jiro caalam islaami inkastoo uu ku jiro ayaa haddana aynu waxyaabaha qaar maaragtay aynu aad u dambaynaa إن شاء الله بإذن الله الكريم وحين إيجينا أينو ما أنتكو إيجينا حلقة بي سي واي تي في بل سيدا إسلام كاس إلهي سبحانه وتعالى ما دام يرديمها أردن بان أنو كسر رئيسين يا دين كيغا بل سيدا أي واقع النقطي أرنتاسو يدا دي أينو قررنا مرحلة هاس أينو صوت الماني لصومري وحق والبا إسلام ومعناها وكأها ومت تمرير وإلهي سبحانه وتعالى هذا حل جاس وسود كشيني آيات هي قرآن كان
يعني أي المسلمين تدبعت هذا أقوى كتير بل وحين إيجينا وحن صار يا بل شاشة بإذن الله الكريم سعيد وارجنو بل سيدا واقع أي نقطة أيضا إيجينا إن شاء الله صبر وحير waxaynu eegaynaa insha Allah markan waa BCY TV waxaynu eegaynaa markaa insha Allah videogan isaga ah waxa weeyaan telefishinada maaragtay wadanka Mareykanka bal sida uu uga hadlayo islaamka iyo sida uu korayo islaamku ayuu ka hadlayaa oo runtii maanta arrin aad maaragtay caalamka oo dhan laga dareemaya meel kasta ama qaarad walba bal waan yara shidaynaa waynu dhegaysanaynaa insha Allah waa aayaddii oo practical marka waynu dhegaysanaynaa insha Allah videoga ayaa wareegaya waxaa laga yaabaa internetku inuu yara culus yahay laakiin waynu eegaynaa insha Allah يعني ninkan wuxuu ka warramayaa islaamku siduu u fidayo iyo maaragtay yani waa daraasad dhan oo maaragtay ay sameeyeen marka waynu eegaynaa insha Allah inuu soo geli doonaa insha Allah dhawaan waa qolada daraasadda samaysay oo wariyuhu wareysanayo sida ay diimuhu isu bedelayaan ayay ka hadlayaan waan yara qabtay waxa weeyaan macnaha wuxuu ka hadlayaa wuxuu leeyahay macnaha iminka caalamka waxa ugu ballaaran buu leeyahay macnaha diinta kiristaanka laakiin waxaynu ognahay diinta kiristaanku qaabkay ku fiday waa qaab xoog iyo ma garanaysaa cabsi gelin iyo ma garanaysaa qaab ma garanaysaa habkii yani crusadeska oo kale nidaamkaas oo kale ku fiday oo waynu ognahay taas caalamka oo dhan baa ka warhaya iyo iyaga oo quwad noqday ma garanaysaa intii ma garanaysaa dawladdii Cusmaaniyada ay burburtay oo kale iyagoo quwad noqday marka waxaynu wuxuu leeyahay hadda waxa ugu ballaaran sida xagga marka sheegashada weeyaan arrintu ka hadlaya ana sheegashada dadka lagu tiriyo inay kristaan yihiin lagu tiriyo ayaa ka tira badan muslimka laakiin 2050ka xaaladdu way isbedelaysaa buu leeyahay oo yacni xaaladdu siday ahayd way iska bedelaysaa xaqiiqadana waxa ah waliba halka uu leeyahay maartay waxa ugu ballaaran kiristanka xaqiiqadu waxa kaniisadii way maran yihiin cidi kuma cibaadaysato oo ma garanaysaa sidii kuma cibaadaystaan yani sidii ay u cibaadaysan jireen waayadii hore kaniisadii u camirnaan jireen hadda waa laga tegay uma camirna waa la xidhay marka waxaynu eegaynaa oo yani qaar badan oo ka midana waxaaba loo bedelay masaajido sidaad arki doontaan insha Allah biidni Illaahi kariim bal waxaynu eegi doonaa saadaashan iyo daraasadan ay sameeyeen qolada tani bal waxa ka soo baxaynu eegi doonaa insha Allah laba kun iyo kontonka xaaladdu sidaas bay noqonaysaa shaashada ka muuqataa boqolkiiba 73 dadka caalamku waxay noqonayaan muslimiin 2050ka waa arkaysaan
kiristaanka isla markaa wuxuu noqonayaa 35 diinta labaad bay noqonaysaa isu bedelaysa macnaha islaamka ayaa ka sarreynaya waxa kale uu sheegay in dadka muslimiinta ah dadka kiristaanka ah asbaabta ka midka yani inaanay iyagu badanin ay ka mid tahay inaanay dhashoodu badnayn macnaha wuxuu weydiinayaa su'aal ku saabsan dad yowgan iminka yani markii hore ahaan jiray kiristaanka ee hadda soo bedelaya ee noqonaya yani muslimka noqonaya oo kale ama diimo kala qaadanaya siday arrintaasi u saameynaysaa yani fiditaanka yani diimaha iyo isbedelka diimaha siday arrintaas yani ay u saameyn ugu leedahay wuxuu tilmaamayaa macnaha in dadka markii hore yani ay ahaan jireen yani kristaan oo kale ay ahaan jireen ay maaragtay kristaan oo kale ahaan jireen sidii lagu soo barbaariyey kadibna iminka aanay dib dambe yani u haysanba diintii una aaminsanayn ma garanaysaa kiristaannimadii waynu sii eegaynaa dadka markaa kiristaannimada ka soo baxaya maaragtay diimaha kala gelaya macnaha waxa ugu badan waxa weeye waa diinta islaamka caalamka oo dhan taas waa laga ogyahay xataa yani in masaajidadoodii oo kale meelihii kaniisadaha u ahaan jiray loo bedelayo yani masaajidooyin loo bedelayo sida halkan muuqaalkan oo kale tan ka muuqata oo kale waa kaniisad tan oo kale aynu shidaynaa tanoo kalaan taabtay marka tanoo kale waxa weye waa dhulka kaniisadaha ahaan jiray ee loo bedelay ma garanaysaa masaajido oo iyaguna aad u tiro badan ayaa waxa ay yihiin yani meelo fara badan oo america ha noqoto maxaan ku idhahdayey yurub oo dhan ha noqoto يعني dhulkaas kaniisadaha ahaan jiray ee masaajidada loo bedelay aad bay u tiro badan yihiin marka alxamdulillah arrintaasina waxay tilmaamaysaa يعني آياتي القرآن كهيدا نكهدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وإلهي سبحانه وتعالى أموتنا هل كان هو كنيسة دون gabadhan waxay ku leedahay macnaha inaad macnaha ay naga qaadaan yani kaniisadkii iyo dhulkii aanu haysan jirnay waxay tilmaamaysaa in ay macnaha diintayadii ay iimaankayagii inuu guuldaraystay iimaankayagii ayay tilmaamaysaa marka aad bay dee u tiro badan yihiin wax la soo koobi karaya maaha insha allah biidni illahi kariim marka intaas baan u malaynaya inay nagaga filaan karto aad bay u fara badan yihiin xataa dadkoodii culimmada ahaa oo maaragtay yani dadkoodii culimmada ahaa
oo maaragtay soo muslimaya ma garanaysaa ayaa iyaguna aad iyo aad u fara badan. marka intaasaynu insha allah iskaga soo gabagabaynaynaa warbixintan oo ku saabsan rajadii yani aayaddan qur'aanka ilaahay subxana watacaala uu kaga hadlayo